maanta waxaa lahayn xafladda Diwaaliga. Marar badan ayaan igu dayay soo booqda laakiin maanta cidla ayaan dareemay. Maalintoo dhan waa iska oonayay. Ma aadan ii imaanina maanta. shaqada ayaan ku mashquulnay waan ilownay inaan kuu imaano. Halkii maalin meeqa ku shaqeysaan? waxay dhibaato kugu haysaa midaas waxbarashada xoog ka saar. Waxaan rabaa intaa ogaado. u sheeg wiilkayga. labadeena maalinkii waxaan soo qabanaa lacag gaaraysa 3 rubi laakiin maxaa ii weydiisay Wax yar suga. intee aadde Waa kana lacagta hal maalin ku shaqeyn kartaan. Waa idin bariyaa hal maalin oo noloshiin ka mid ah meel qaybsan kartaan. Waa idin bariyaa. waan ka xumaay wiilkayga. waan ka xumaay. dadku waa kuwa aad ugu mashquulsan si ay u tacbil hayeen lacagtaasoo ilowsiisa familkooda caruurtooda iyo waalidiintooda lacagtaas maxaa ay taraysaa mar haddiiba kaa ilowsiinayso dadkii kugu dhadhaba oo kaa mudna inaad waqti siiso yaad u shaqaynaysaan yaad lacagtan siinaysaan soo bax wiilkaygii waaw iskuulka maanta idinka ka soo kaxeeya miyaa shucuurtiina ayaad kicisay Maalin kasta hadda iskuulka iga soo doontaan yaa idin shaqeynaya. mudane ha ka walwalan midaas waxaa jirta hab aad ku samayn kartid lacag adigoo jooga xaafadaada waa qaab online ah adigoo jooga xaafadaada ayaad extra money samayn kartaa website-ka magaciisuna waa techoki.com si fiican ma igu sii sharaxi kartaa si aad ugu madniiqato macaamiisha waa inaad garaacdaa website-kooda ah techoki.com kadib waxaa kuu soo baxaya page-kaad arkayso calaamad orange ah calaamadaas ayaad ku dhufanaysaa kadib apply ayaa dhehaysaa waa website aad iyo aad u wanaagsan oo hawshaadana kuu sahli karaa xaafadaada adigoo joogana wax badan ku qabsan karaa lacag badanaad ka heli kartid wiilkayga miyaad faraxsan tahay Haabo. hadda waxaynu nahay dad shaqeeya familkoodana u awooda in ay waqti la qaataan tani waa nolosha dhabta ah